بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحب وترضى وبعد سؤال ما يدي ويديه رجل ما وضعته مع الله بس الرجل ارتس كبحاي وجرا على سكر هذا اي قرتي انا كل يملي dadka takhasus ka artist ka ale markay farsamo noqoto tumaal baan Axmed Ismaaciil baan macalinkoodii ahaa 1981 marka bal waxaan isku dayi doonaa wixii aan mawduuca ka gartay inaan wax ka tilmaamo markaynu nidhaahno alqiyaada qiyaadadu saaf Soomaaliga waa hoggaan culimada af Carabiga waxay yiraahdaan alqawd was-sawt way yiraahdaan xoolaha ka xagga hore ka kaxeeyana waa qaa'id ka xagga dambe ka kaxeeyana waa sawqi waa dareerintii ama kaxayntii qiyaadadu aslan macnaha luqawiga ay leedahay umayt marka dhab ahaan loo eego waa hogaamin ama horseedid ama gadhwadeennimo waa qof horkacaya dad kale مصطلح ahaana ama terminology ahaana kama gedisanata qiyaadadaasi ha ku saabsanaato qofku qudrad shakhsiya abuurkiisa alle uu abuuray inuu wax ku hogaamin karayo ama iltizaam adabiya dad kala dambeyn leh aan laakiin qaanuuniyan ahayn ama ha noqoto sulta mamnuuxo la siiyayba inuu boos maamul joogo oo dadka ku hogaamin karo nolosha bini aadamkuna kama maaranto hogaamin waxay yidhahdaan reer galbeedku hogaaminta si fiican buu u fahmay institutionska galbeedka jira bay yidhahdeen hal mid ah ayaa bilaa hogaana halkaa midkiina waa ka burburay bay yidhahdaan any institution galbeedka jira westernka hogaan buu leeyahy maamulka kala dambeyn buu leeyahy cid hogaan bisuu leeyahy hal institution quray diideen hogaamin waanu burburay waa qoyska galbeedka ninka iyo gabadha waa simayeen saadaradeed midna mid ma hogaamiyo waa waxa burburay kaliya waxay yidhahdaan waa meesha qura ee aanay ku adeegsanin aqoontoodii administration ama maamul ama hogaamineed nolosha binaadamku saadaradeed nolosha kama maaranto maadaama aanay nolosha ka maarmin waa sababta nebigu uu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam 3 qof oo safar ku jira safarku waa wax waqti yar oo gaaban la galo waa wax danta la leeyahay hadaf ay meel la gaaro kooban 3 qof xataa haddaad tiin baa la yidho safara ku jirtaan cidi haydin hogaamiso cidi maamul ha samayso taasi waxay tilmaamaysaa bay culimadu yidhahdaan sida aan bini aadamku marnaba uga maarmin hogaamintu bay yidhahdaan marka waa awoodda uu qof ku dhaqaajin karo dad hadafkooda uu ku gaadhsiin karo وأود قف بني آدمي القدرة على تحريك الناس أو الاتباع نحو الهدف وقفك إنه ضدك حيه وقولك يا متارجت يا ما هدف كلا لها جارسين كرا تاسي ما وحلا دشابه مسوى وحلا برطه سيدي دبا behavioral بلادتان كورنتا psychology وقضيات مرن بدن لبا iska jirto school of thoughts ku kala gadisayeen oo ah binaadamku ma waxan miyuu u dhashaa oo inuu yaro qorqorraawo bise waynu ku samayn karnaa oo wax la kasban karo la baran karo tani markaa waxay ka mid tahay waxyaabaha isweydiiyaan qiyaadada miyaa loo dhashaa iyo hoggaannimada oo markaa inaga waajibkeenu wuxuu noqonayaa hoggaanka inaynu baadi doono mise waa la dhisaa oo waajibaadkeenu wuxuu noqonayaa dadka qaadaynu ka dhigi karnaa haddii aynu farsamadeeda iyo tababarkeeda u marro waynu tababari karnaa qaada dad wax hogaamiyaynu ka dhigi karnaa labada ra'yiba dad baa ku tegey laakiin iminka waxay qaataan inta badan ay ku dhaqmaan waxay ku tilmaamaan bell distributionku waa jaraskii maxaa la yidhaahdaa baalkan soo jarisku saa uma samaysna waxay leeyihiin 1 to 2 hal ilaa 2 qof boqolkiiba way u dhashaan hal ilaa 2 qof boqolkiiba qaadanimada waa sifa
ilaahay uu siiyey oo ay ku dhashaan. baalkii iska aamus waa sifo alla siiyey bay leeyihin oo ku dhasho, marka waa by nature. tusaalayaashay bixiyaan waxaa ka mid a matalan cumar oo kale bay idhaahdaan waa dadka ilaahay u siiyey maxay by nature inuu qaa'id noqdo. waxay idhaahdaan taa cagsigeeda 1 ilaa 2 qof boqolkiiba iyaguna wax ma maamuli karaan. waa dad natural sida alla u abuuray aan lahayn tamarta inay wax maamulaan. culamada bar baa tusaale u qaata saxaabigii la odhan jiray abidar iyo cida lamida oo nebigu wuxuu ku yidhi laa ta'marana calaa itnayn, weligaa 2 qof ha u talinin buu nebigu kula dardaarmay. 2 qofna madaxa u noqonin, xoola agoomeedna ha maamulin. isagoo haddana saxaabadii ugu waaweyneed saxaabada oo min uu nebigu ku tilmaamayo asdaqu lahja inuu yahay, ninka ugu warcad saxaaba inuu yahay, nin geesiya oo keligii intuu islaamay markuu islaamay nebigu yidhi iska tag, yidhi maya quraysh oo dhan baa ka hortegaya. intuu quraysh meesheeda fuulay tawxiidka ku dhawaaqayoo la tumay oo haddana maalinkii kusoo noqday oo waxaa samaynayay, haddana nebigu wuxuu ku yidhi markay maamul noqoto 2 qofna ha maamulin. marka waxay idhaahdaan 1 to 2% bini aadamka ka midi naturally baa ilaahay u abuuray inay qaa'id noqon karaan. 1 to 2 bini aadamka ka mida percentna naturally baa abuurkoodu yahay bay idhahdaan inaanu qaa'id noqon karin. inta soo hadha markaa waa maxay? waa 96 up to 98%. waxay leeyihin waa dad la tababari karo. waa dad maxay la tababari karo haddii ay tababarkii saxa ah helaan. marka haddii la tababaro way noqon karaan qaada ama dad wax maamulo bay noqon karaan. qaa'idku ama cidda wax hogaamisa guri ha noqdo oo qof waloo inaga muybdaba inta badan guri waa hogaamiyaa 9 iyo dhowr caruura, ama ha noqoto madaxweyne ummad hogaamiya iyo inta ka dhexle u dhaxaysa bini aadamka. intaasiba maamul cid haysoo tiro badan baa jirta. qaa'idku markaa waxay dhahdaan waa qof waxyaabo badan looga baahan yahay. haddaan warka soo koobo, odaygii Maxwell la odhan jiray waa oday wadaad Kristan oo weyn oo markii dambena qoladan leadership ka dhigtaa ayaa wuxuu idhaahdaa leader is one who knows the way, goes the way and shows the way. hoggaanku buu idhaahdaa waa ninka garanaya waddada. marka hore waddada la marayo uu garanaya, waa mar labaadna waa qof isagu practically u gelaya waddada inuu raaco, waa mar saddexaadna waa qof dadka hagi karo isna waddada tusi kara. haddaynu war kooban oo kala tilmaamno waxay idhahdaan qiyaadada marka laga warramayo 2 dhinac unbay inta badan uga warramaan. mar waxay ka warramaan traits, simaad ama sifaat qofka uu leeyahay. marna waxay ka warramaan mumaarasaat, practices, waxyaabo la rabo qofku inuu sameeyo oo waxaa hadduu sameeyo uu hogaamin saxa noqon karo. waxyaabaha sifaadka shakhsiga ee qofka simada laga rabaa, dadku dhaqanka ay leeyihiin ee ilaahay ku abuuray waa la qorqori karaa bay idhaahdaan. maalan deeqsinimadu waa wax loo dhasho marka koowaad. qofbaa by nature deeqsiya, hantidu aanay wax weyn lahayna gacan furan. laakiin dadka kalena waa la bari karaa bay leeyihin. qofka waa la train garayn karaa ilaa ay gacantiisu ka barato maxay inuu wax bixiyo. walidaalika baa matalan markaa deeqda laga warramayo qur-aanka waxaa aragteen in badanoo sakhinimo lagama warramayo. walaa yaxudu calaa طacami miskiin baa laga warramaya. ma dhiirigeliyo. yacni waa trainingka qofka bini aadamka. islaamka matalan marka waxbixin laga warramayo dadka inta badan waxaa madaxooda kusoo dhacaa dadka wax haysta ma aha. waxbixintu waa dhaqan laga rabo qof kastoo muslima. waxa yar baa wax laga bixiyaa, caqligaa wax laga bixiyaa, aqoontaa wax laga bixiyaa, qofba waxba la siiyey, kartidaa wax laga bixiyaa, dadka waa la saaciday. yacni nebigu markuu sadaqada u tilmaamay wuxuu yihi qofka aad faraskiisa la saarto ama aad sama u sheegto ama aad caynkan u sheegto waxaasoo dhan waa sadaqa markuu tilmaamayay. it means wax bixintu maado qura maaha, wax weynna maaha inaad wax weyn bixiso.
waxaa laga yaabaa jeebkaagaba 2 shilin inay ku jirto 2 koob oo shaaha gooya waa inaad koob shubtaa waa wax bixin waad qof kale koob siisaa idan wax bixintu bay leeyihiin waa wax qofka bini aadamka la bari karo dhaqamada qofka bini aadamka bay dhaahayaan la bara markaa qaarna qofku naturally markuu hore 60% sida u fiicnaa waxa ka dhiman waa 40% around 20 kale waa loogu dari karaa qaarna waxa laga yaabaa marka horeba inuu 40 joogay marka masalada la eego warbaalkan ma meel baan taabanaya mise siisuu dabaya aan iska daayay la codkaygu mala waa gaadhaya waxay dhahdaan qaarna waxaa jira inuu 40 meelahayay laakiin 20-30 aynu ku dari karno marka naturally sida alla inoo abuuray wax badan baynu ku kala gedisanay deeq ha noqoto aqoon ha noqoto waxbarasho ha noqoto dakaa ha noqoto laakiin waxay leeyihiin wax kastoo waxaa ka mid ah hadduu qofku training helo waa la ziyaadin karaa waa la kordhin karaa ilaa iyo laga dhigi karo qof waxaasi si fiican u garanaya haddaba marka laga warramayo hogaamintu leadershipnimadu managementka way ka gedisantay bay dhahay maamulka way ka gedisantay maamulista caadiga bay dhahay Peter Drucker in la yidhaahdo wuxuu leeyahay management is doing things right managementku waa waxyaabaha inaad si fiican u qabato wixii shaqada lagu diray inaad si fiican u qabato doing things right laakiin leadershipku buu leeyahay is doing the right things kii hore wuxuu yidhi doing things right kanna wuxuu leeyahay waa maxay is doing the right thing inaad waxa si fiican u qabato iyo inaad waxa fiican qabataa waa kala macno bay leeyihiin waxa si fiican inaad u qabataa waxa weeyaan qof innovation lama tihid qof ru'ya lama tihid qof horsocod kale waxaan lagu dhiibay unbaad rabtaa inaad ceebe kaaga iman aad sida wado waad manage garaysay waad habaysay tan unbaad ceebteeda iska ilaalinaysa midna waxa weeyaan inaad isku daydo opportunitieska inaad ka faa'iidayso maxaa fiican ee la qaban karaa xagee loo socon karaa maxaa lagu ziyaadin karaa shayga inaad halkiisa ku haysaa waxay dhahdaan waa kartida halka ugu liidata haddii shaqo lagu dhiibo bay dhahdeen weligaa waxaad ku dadaashaa halkii aad ugu timi meel ka hooseysa inaan lagugu imanin haddaad waxba kordhin kari weyda bay dhahdeen halkaa ku hay iyo halkaa hoos uga noqonin laakiin bay leeyihin qofka leaderka ahi maaha qof managerial ah oo waxaan inuu halkaa ku hayo ku tijaabinaya ama resourcekaa loo dhiibay iyo intaas uun si fiican inuu maamulo ku tala jira ee waa qof raba inuu wax cusub kordhiyo ama wax soo horseed uu noqdo haddaba haddii aynu nidhi waxyaabahaasoo dhamme waa wax qofka bini aadamka ahi uu la bari karo uu samayn karo uu wadi karo nabiguna calayhi salaatu wasalaam nin saxaabiya u yimo wuxuu ku yidhi adiga 2 khasladood oo ilaahay jeceliyey baad leeday alxilmu walanaa buu ku yidhi markaasuu wuxuu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyow ma anaa kasbaday mise ilaahay baaba igu abuuray nabigu wuxuu ku yidhi ilaahay baa kugu abuuray yani by nature baad u dhalatay inaad qof degan oo kaadsiiyala tahay laakiin waxay leeyihin culamadu dee nabigu wuxuu kaloo yidhi inama alcilmu bitacallum wa inama asabru bitasabur cilmiguna waa wax ku yimaada tacliim sabirkuna waa wax ku yimaada bitasabur isa sabirsiin haddaba leadershipku waa wax la baran karo oo qof wal oo dadka ka mid aba la baran karo laakiin waxbaristu waxay dhahdaan waxyaabaha qaarkoodna waa theoretical oo waxay u baahan yihiin in lectures un qofka loo akhriyo taa macnaheedu waxa weeyaan macrifadiisa aqoontiisa informationka uu hayaa inuu biiro waxyaabaha qaarna waxay yidhaahdaan waa wax training u baahan tadriibaad u baahan in la tababaro idan leadershipnimadu casrigan dambe waxay ka mid tahay waxyaabaha trainingska lagu bixiyo coaches bay maanta dunidu leeyihiin trainers bay leeyihiin loo tababaro qofku sidii uu noqon lahaa ma aha tii jaamacadee theoryga ahayd ee uu qofku dee duruus soo qaadanaya laakiin waa tababar rasmi ah noloshana waxaa la ogaaday wax badan inuu tababar ka taro culumu tarbiya oo dhan iminka inteeda badan waxay yidhaahdaan waa wax u baahan training training la-aantu waxay la mid tahay qofka haddii iminka haddaynu gaadhiga marka la baranayo theory baa la isu dhigi jiray
meelaha xaggeena theory badan lama dhiga Yurubka iyo meelaha theory baa la dhigaa class baad fadhiisanaysaa maanta dhan waxbaa la akhrinayaa waxaa la akhrinayaa waa wixii gaadhiga lagu shaqaynayay kadibna imtixaan baad gelaysaa imtixaanka theory-ga markaad baasto un kadib ayaa lagu bilaabayaa practicalka in lagu baro ka waran qof haddaynu intaynu imtixaankaasina nidhaahno dee gaadhiga kaasi saliidana qabo crashkana ka yara dhaqaaq geerkiina shantaa geer baa gale sidaa u geli ka soco yani isna wuu ku dhib mudanayaa dadka waddada marayana wuu dhibayaa mashaakilkiisa uu tara badan laakiin haddii la train gareeyo waa la gaadhsiin karaa inuu noqdo maxay good driver inuu noqdo waxay dhahdaan maanta leadershipku ama aqoomaha ku saabsiisan culumu tarbiya oo dhan aqoomaha ku saabsan bini aadamka in la koriyo dhammaantood waxay u baahan yihiin bay yidhaahdaan aqoomaha ku saabsan bini aadamka naftiisu maanta dunida cusub waxay noqdeen wax tababara oo qofku u baahan yahay from A inta looga bilaabo oo la train gareeyo up to Z in la gaadhsiiyo saa awgeed leadershipku wuxuu ka mid yahay waxyaabaha maanta coachingka lagu qaato ee la tababaro haddii la rabo cid in leader laga dhigo ama hogaamintiisu inay qurux badnaatana waxay ku fiican tahay inuu tababarada qaato haddaynu guud ahaan eegno ninka la yidhaahdo gaal la yidhahdo John Adair waa ninkan United Nationka kuliyadoodan liidernimada ama tababarka bini aadamka ee Torino ku taala haysan jiray waa nin jawaa'iz badan ay ku siiyeen baabkaasi trainingka wuxuu leeyahay book la yidhaahdo Leadership of Muhammad النبي محمد عليه الصلاة والسلام يهجامنتيسي وأنا نكي قاطي أفضل جائزة علم الإدارة لما كوني كوبي طبعا كي إنجليزكا British Chartered Institute of Management سبا أي جائزة قاط يا وحاو تلماما يا فكرتك كوبانو قائد كبولي وحول الرع يتنوحوا دليشنا يا حديث كي نبي جيت الماما ما من نبي إلا وقد رعى الغنم dabeetana wuxuu sharxayaa uun ninka adhiga raaca muxuu qabtaa buu sharxayaa ninka adhiga raaca buu leeyahay wuxuu ka fekeraa the well being of this sida ugu fiican xoolihiisu ay u naaxi lahaayeen oo samaysmay lahaayeen dabeetana wuxuu ilaaliyaa buu yidhi ta jaban waa kabaa ta gaabinaysa ta ciddadu ku baxday ta shinnidu maxaa la yidhahaa shilintu cuntay taa marka qofkani wuxuu ka fakarayaa buu leeyahay xoolihiisaasi dhammaantood siday u noqon lahaayeen wax fiican leaderkuna waa saasun buu leeyahay waa qof bulshada uu hogaaminayo ku tala jira keeda jaban inuu kabo oo ka shilintu cuntay inuu ka gooyo oo ka qanjaafilu ku baxeen inuu ka jaro oo well-being inuu ka wada dhigo sida ugu qurux badan leh inuu u wada taagaa buu tilmaamayaa buu leeyahay kadib wuxuu tilmaamayaa uu leeyahay qaa'idka namuudajiga ah ama qaa'idka fiicani sidii nebi maxamed oo kale ahi buu leeyahay calayhi salaatu wasalaam waa laba shay ama saddex shay qof kale buu yidhaha waa qof buu yidhi isagu shakhsi ahaan mutawaadic ah yataxallaa bitawaadic laakiin wayaxdaa bilixtiraam buu leeyahay tawaaduciisu maaha tawaaduc dadku ay yasaan haddana markay dadka joogto agtoodana waa qof ay ixtiraamayaan isaga waa mutawaadico qof isweyneynaya maaha jaanibka kale marka la eegana waa qof la ixtiraamayo oo la weyneynayo intaa waxa u dheer buu yidhi waa duu basiiratin wa ilhaam wuxuu leeyahay vision iyo inspiration ama aragti iyo taxfiis inuu dadka tawjiihin karo meesha mari karo waxaanu u taagan yahay buu leeyahay dadka dantooda khidmat innaas haddii aynu sidaa ku sifayna buu leeyahay qaa'idka fiicani محمد عليه الصلاة والسلام بقى بولي قائد كي دوني دوغو فيعنا صدح صفة أيولي يدبولي وصفة الراعي بوات أبولي نينك حولها الراعي أرق الراعي صفة دي سيولي يبولي وحكولو لي يبولي صفة الشجاع المتواضع قف جيسنا وديرن متواضعنا والديوانية دي سيولي أرقى عربيات واستعماله عربت وكوان nin waliba wuxuu leeyahay meel naadiyo lagu shiro boqorada iyo madaxdooda iyo waxa kani meel bay samaystaan kaynta ku taalo khaymo weyno la fadhiisto dadka ay ugu yimaadaan meesha lagu shiro diiwaaniyadiisi buu leeyahay dadka oo dhan maftuux bay u tahay ma aha cid dadka inuu qori u soo galaysa maftuux bay dadka oo dhan u tahay
maftuuxnimada ay tahay dad oo dhan u furantay waxay faa'iideynaysaa buu leeyahy inuu noqdo qudwa, inuu noqdo qof lagu dayan karo oo ku dayashadu inay dadkao dhami arkaan waxaad samaynaysa bay ka timaadaa buu leeyahy. qodobkiisa saddexaad uu ku tilmaamayaana waa alru'ya watawjiih, inuu leeyahay aragti iyo jihayn. dad baa aragti leh, inta badan dadka naabiqiinta ahi ama indheergaradkeenu dhaa waa dad aragti leh, laakiin ma wada aha qaa'idiin. qof baad arkaysaa dakiya, very intelligent ah, intelligencekiisu 100% uu yahay, laakiin laba qof aan wadi karin. sababaha waxaa ka mida bay idhaahdaan, haddii nin dheeriya bay idhahdaan nin gaaban israacaan oo ninka dheeri wax fog arko, ninkan gaabanina aanu arkaynin wuxuu ninkani arkayo, mal xal bay idhahdaan, maxaa xala? waryaa miyaad waxaan arkayn buu leeyahy, maya ma arka buu kani taagan yihi, ma arko ayuu taagan yihi. waxay idhahdaan waa laba midu, inuu qof wax qancin kara noqdo oo qofkan ka dhaadhicin kara mashaakilka uu arkayo, ama qof iithaar loo wax la qaybsi lahoo aqbala dadku inay wada socdaan oo waxa uu arkayay hadduu kani arki kari waayey ku qanca, bal wixii kale laga maarmi waayo in la qabto. labada solutionba waa laba lagu wada socon kara bay idhahdeen. laakiin hadduu cadhoodo o yidhaha waxbaba arki maayo ku hore iskaga tegayna, waxa laaliya waxay faa'iido leeyihin ma jirto. waxa lamida bay idhaheen qofka more intelligentka ah, visionka leh, wax badan arkaya, laakiin aan kooxdiisa ama qancin karin ama wadi karin. qofkii wax ugu arkaya aragtidiisana way fiican tahay, waxaanu sheegaya waa fiican yihiin, laakiin ma laha wixii uu wadi karayay. si awgeed maalan ninkan la idhaahdo Posner waa nimay ku tilmaamaan 20 nin human resource thinkerska dunida ugu waaweyn ka mid ah. waa nin professor ah, waa professor of leadership, waana coacheska ugu waaweyn ee dunida train gareeya. Barry Posner baa la idhaahdaa, iyo nin la idhahda Jimmy Cousins baa jira. labada nin waxay leeyihin buug caana, buugooda dunida aad buu caan ugu yihi. waxay idhaahdaan waa bugaagta award winningska, waxyaabaha helay jawaaista tirada badan la siiyey. waxay idhahdaan wuxuu ku jira bugaagta ay idhahdaan bestseller books, bugaagta ugu fiican ee la iibsado markay leadership joogto. buuggooda tani waa just a research, waa buug marka baabkan la eego waa bugaagta u ah bibleska. yani waxay dhahaan ilaa 2 milyan oo copy baa laga daabaxay. yani sideedaba marka bookska laga warramayo iyo qiimeyntooda, wuxuu hadduu yahay wax dadka oo dhami akhriyaan bilbalaayiin novelada iyo sheekooyinka iyo rawaayadaha iyo waxa markuu yahay 2 milyan wax nafle maaha marka saa loo eego. laakiin waxay dhahdaan hadduu scientific books yahay, مثلا book physics hadduu yahay, waxaa la isweydiinaya dee dunida imse qof baa physicska barata, waa dad yar marka sidaa loo eego. ama book programming ka warramaya hadduu yahay, dunida dadka programmingka ku mashquulsan intay leegiin. hadduu buuggaasi noqdo buug qof kastoo programmingka ka shaqeeya uu sito, waxay tilmaamaysaa inuu yahay bugaagta ugu qurux badan leh. laakiin programmerska dunida oo dhami haddaynu isu geyno waxaa laga yaabaa inay 2 milyan oo qof noqonin ama 3 milyan 4 milyan oo qof. programmerska dunida oo dhami waa dad yar, marka hadduu 2 milyan oo copy buugga laga daabacay, macnaheedu waxa weeyaan waa buug aad u cajab qaba. buuggani waa leadership, that means dadka akhriya waa dad tirsan, bulsho weyntu shaqo kuma leh, dad kooban baa akhrisanaya. buugga dadka kooban ee akhrisanaya hadduu 2 milyan copies laga daabacay, macnaheedu waxa weeyaan waa buug aan kuwa ugu horeeya bini aadam u qaato. waxay ku tilmaamaan inuu yahay 10ka buug ee leadership ugu sarreeya, ama culumtan business books oo dhan 100ka buuga ugu mudan buu ka mid yahay. 1982 bay qoreen ilaa iyo first editionkiisii 50th editionkiisii 2002 alifkii meelahaasuu marayey. waxay ku tilmaamaan buuggani waa field research, waa baaritaan dadka lagu sameeyey. waxay isticmaaleen waxaana yidhaahdaan leadership practices inventory, LPI. LPI-gani waxay yidhaahdaan waa toolka technique ugu fiican ee wax lagu baadho marka baabkan la joogo. technique-gani wuxuu ka kooban yahay ilaa 360 assessment, 360 assessment ama 360 assessment toolisa ayuu ka kooban yahay. waxay wax weydiiyeen 3 milyan oo qof,
waxa ay written form jawaab qoraala ka heleen bay yidhaahdaan 75,000 oo qof waxay raadinayeen oo baaritaanka ku wadeen hoggaanka dadka guusha u horseedi karaa waa kuma baaritaanku intaasuu ku saabsan yahay hogaamiye ama leadershipka guul horseedi karaa waa kuma waxyaabaha ugu mudan ee dadku ay doorteen waxa ka mid ah waxay yidhahdeen waa hoggaanka leh waa traitskii baa laga warramaya yani simaadkii qofka shakhsiga ahaa waxay yidhahdeen waa qofka leh al-amaana honesty iyo bay yidhaahdaan competency alkafaa'a waa qof ammaanana leh kafaa'a howlkarnimona leh forward lookingna ah xagga horena arki kara way wadeen researchkooda waxay ku soo koobeen markii ugu dambeysay statisticskii dadka ay ka qaadeen oo dhami waxay ku soo urureen bay yidhaahdeen 5 qodob qodobka koowaad waa daacadnimada waa honesty waa daacadnimo qofku inuu waxa kan uu daacad yahay wax qof wax khiyaameynaya inaanu hayn khiyaamadu material oo qura maaha waa inaad dadkan aad maamulayso daacad u tahay honesty inaad tahay ka labaad waxay yidhaahdeen waa inuu qof aragti leeyahay qof uun dee cagihiisa arkaya uun inaanu noqonin ee qof indheer arkaya inuu yahay ka saddexaad waxay yidhahdeen waa qof inspiring ama taxfiis waa qof tashjiicin kara waa qof dadka shaqada inay qabtaan ku tashjiicin kara ka afraad waxay yidhahdeen waa competence waa alkafaa'a qof karti leh howlkara waa inuu noqdaa ka shanaad bay ka dhigeen markaa الذكاء والنبوغ intelligence يعني intelligence waxaad aragtaa in wax badan markay leadership nimo joogto laga horeeyo oo ay tilmaamayaan baritaanadooda cajabta leh waxa kamid ah 1,500 oo CEO oo dunida shirkadka ugu weyn hogaamiya ayay su'aal u soo bandhigeen goorma ama leadersku sidee bay u gayn karaan يعني how leaders gain and lose it وسؤاش أي بوجا كقريين بوجو ما قال على هذا قرين وحيلين leader كوفي عن وكيف هذا وسيو يدي عالم كورنا وحكون دو وحيكوش يجين أما leader كسيده بو هلي كرابا لو يدي وحيكوت المامان credibility المصداقية waxay dhahdeen laba shay hadduu yeesho mustaqiyadu ama credibility go laba shay bay ku xidhantay bay dhahdaan waa truth telling and trustworthy labadan eray waa labadii eray ee nabiga lagu sifayn jiray as-sadiq al-amin waa qof run sheegaya waan been lagu aqoonin waana qof bay leeyihiin maxay amiin oo daacad leh daacada hadaad rabta bay leeyihiin hogaamiye credibility wuxuu ku heli karo misdaaqiye wuxuu ku heli karaa waa inuu labadan yeeshaa waa CEO-yadii caalamka oo dhan walidaalika buu nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamayaa saddex aakhira ilaahay lama hadla baa la yidhi mana eego cadaab kulula way leeyihin saddexdaa la tilmaamay waxaa ka mid ah sheekh zaaniya baa la yidhi nin weyn oo zinaystay dee nin dhallinyaro ah waa laga eegayay zinaya waxaase nin waa yeel zinaystay waxa kaloo la tilmaamay melik kadaabah meligga waxaa loo jeedaa yani maamul nin dad u haya oo beenaalo ah halkay kuwan yidhaahdeen asaadiq ayaa run ah nebiguna wuxuu leeyahay aakhira kuwan ilaahayba la hadlin buu ku biirayaa hadduu noqdo maxay beenaale iyo caa'il mustakbir haddaba kalsoonidu ama credibilitygu in qaa'idku uu noqdo qof la jecel iyo lagu kalsoon yahay waxay ku dhismaan un bay leeyihin labadan shay hadduu qaa'idku saadiq amiina yahay waa qof credibility buu noqonaya qur-aankana inta badan haddaad aragto dadkii ilaahay wax u dirtay malaa'ig iyo rasulba amaana lagu sifeeyey qur-aanka markaad eegto nebiyadoo dhamme nebi waliba muxuu leeyahay innii lakum rasuulun amiin buu nebi wala sheegayaa xataa malakul jibriil ilaahay wuxuu yidhi nazala bihi ruuxul amiin baa lagu tilmaamay mutaacin thama amiin
ammaanadu asal bay ka tahay qofku inuu qof ammaano leeyahay waa asalka innaga wadanadan waxyaabaha aadka ugu liita waxaa ka mid ah waa qadiyadda koowaad ee aan la qiimeynin markaynu leadership ka warramayno siyaasadda waxaa loo yaqaana qofba qof ka been badan yahay ama ka tuuganimo badan yahay macnaheedu waxa weya mujtamaca tuuga ayo markaynu kan ceebeynayno ma aha inaynu tuuganimada necabnay ee waa qofka qaatay baynu necabnay hadduu ku reerkiinay qaato ood iska aamusi lahay mashaakilku waxa weeyaan yani maalan nin baa maamul haya tuug buu noqday waxbuu xaday 2 guri 3 guri 4 guri buu dhistay markuu meesha gelayayna mid ma lahayn 4 guri dhistay inagu waxaynu odhanaynaa waa ammaanaynaa waxaa la leeyahay wallahi ninkaasi dee 2 sanadood buu shaqeeyo reerkii guri waa uga dhisay carruurtiina biilka meel ay ka soo qaataan buu uga sameeyey waa ammaan mujtamacana wuxuu ka yahay qof ammaanan oo qof wax ka qabsaday kii intaa la mida shaqeeyay aan waxba ka soo qaadaninna war waa bahal nacso inta wasaarad loo dhiibay dhan ayaa weli carruurtiisii loo dawarayaa bay leeyihin dadminis waxa weeye tuuganimadaynu isku waafaqsannay waxaynu isku haysanaa waxa weeyaan waa qofka cunaya farqa inoo dhexeeya waxa weeyaan waa kumuu noqonaya ninka wax xadaya laakiin wax xadidda waa wada ogolleh in wax la xado dadminis waa ummad aan lahayn markaa sifadii koowaad ama wixii koowaad aanu lahayn bay wax ku dhismayaan ama hogaaminay ku soconaysa aan jirin hogaaminta waxa ugu horeeya bay tilmaamayaan 1500 CEO hogaanku credibility wuxuu ku helayaa bay leeyihiin waa inuu aaminay ammaana inuu leeyahay shayga labaadna waxay leeyihiin waa inuu qof run sheegaya yahay innaga siyaasadda waxaynu u naqaanaaba inay tahay maxay kadib ama nifaaq waxaanay dowladdu inta badan sheegto waa waxaanay qaban doonin way ogyihiin inaanay qabanaynin ninka madaxda meel buu imanaya waa khudbadaynaya waxbuu sheegaya waxaanu sheegaya isagaana og inaanu samaynaynin idan waa been sideediyo dadka loo sheegayo waa beentu saacad dadka waa khawaysiin kartaa laakiin after 2 days or 3 days dee xaqiiqadaa la gaadhaya waxaan jirin unbay soo baxayaan saa awgeed nabigu calayhi salaatu wasalaam saxaabada markuu la hadlaya wuxuu lahaa alaa ta'manuuni waana aamiinu man fi samaa war miyaydani aaminayn buu leeyahy anigoo ah amiinu man fi samaa allaha cirka abuuray anoo ah cidduu ku aaminay waxyiga waxaanu anas ibnu malik lahaa khutabkii nabiga weer baa jirtay buu inta badan ku jiri jirtay nabigu ma khatabanaa nabiyullahi buu leeyahy nooma khudbadaynin ilaa iyo wuxuu yidhi laa iimaana liman laa amaanata lah walaa diina liman laa cahda lah waa labadii shay aynu ka hadlaynay iimaan ma leh qofka aan ammaano lahayn iyo diin ma leh qofka aan ballan lahayn ballanku waa waxaad ballan qaaday weerad ka run sheegtaa ama wax siin ha noqoto ama wakti aad qof la ballaantay ha noqoto ama waxay doonto ha noqoto ballankaagu waa inuu run noqdaa waa inuu sidqa ku salaysnaadaa saa daraaddeed buu wuxuu leeyahay khudbad kasta uu nabigu jeediyo waxaa ku jiri jiray buu leeyahay anas ibnu malik saxaabigaasi inuu nabigu yidhaahdo iimaan ma leh ninkaan ammaano lahayn diin ma leh ninkaan ballan lahayn ka waran iyadoo nabi maxamed khudbad kasta uu jeediyo uu intaa ku daro waxay tilmaamaysaa bulshada dhexdeeda waxa kale qiimaha siduu ugu leeyahay idan waxaan leenahay markaan soo koobno wixii diintu inoo sheegtay unbay qoladan waxbaadhe researcheska ahina kusoo gabagabeeyeen researchkii bini aadamka ee field researchka ahaa ee ay sameeyeen labadaa professor ee dunida ragga looga dambeeya ahi ee bas seller bookska ay kusoo bandhigayaan waa research 30 sanadood socday waxay kusoo saareen waxa weeyaan waa wixii ilaah iyo rasuulkiisu ina fareen oo ah haddaad mistaaqiya credibility haddaad rabto qof hogaannimadiisa dadku ay qirayaan inaad noqoto wuxuu u baahan yahay inaad labada tan yeelato sifo asidqu walamaana mumaarasaat baa yimi markaa maxay yihiin waxyaabaa looga baahanyay shaqooyinka la rabo inuu qabto qofku isla nimankaasi 5 dhaqan bay sheegeen ay leeyihiin 5taa dhaqan hadduu yeesho qofka qaa'idka ahi waa qaa'idkii dhabta ah 5tan dhaqan siday u imanayaan waxay u yeeleen waxay yidhaahdaan the 10 commitments 10ka shay ee la rabo inuu qofku sameeyo oo 5tan dhalaya shay walo ay tilmaameenba 2 shay bay leeyihiin haddaad samayso
waad wixii la timi shayga koowaad ay yidhaahdaan qofka qaa'idka ahi waxaa laga rabaa inuu noqdaa iyagu waxay yidhaahdaan model the way bay yidhaahdaan ama kun namuudajan tusaale noqo macnaheedu waa maxay waxay yidhaahdaan iyagu warkooda waxay yidhahdeen his deeds are louder than his speech bay yidhahdeen afcaashiisa ayaa ka cod dheer warkiisa waa uun ilaahay muxuu yidhi ata'muruuna annaasa bilbiri watansawna anfusakum wa antum tatluuna alkitaab maxaa ugu dambeeya afalaa tacqiluun waa maandaro inaad dadka intaad u khudbadayso ama wax farto ama shaqada intaad dadka isu yeedho tiraa sahla yeelo adna aanaad yeelaynin waa maandaro marka waxay leeyihin haddaad rabto leader midho dhala inaad noqoto waa inaad noqotaa bay leeyihin namuudaj waxay kaloo yidhaahdaan if you don't believe the messenger you don't believe the message bay yidhahdaan haddaanad rasuulka rumaysnayn risaalada ma rumaysnid bay leeyihin qofka wax sheegaya haddaanad ku qanacsanayn waxa uu sheegi doonana ku qanci maysid qofku hadduu agtaada beenaale ka yihi ama imaan laawo ka yihi ama qof aan waxba tarin ka yihi ama warku kuu sheegayana qiimo kuuma laha laakiin qofku hadduu agtaada qiimo ku leeyahay warka uu sheegayaana wuxuu noqonayaa maxay war aad u dhag raarayso idan message qura oo 5 qof oo kala nooci sheegeen ayaan isku dhaqan noqonaynin message waa kii uun waxba iskama bedelin message ka la odhanaya waa kii uun ee dadka loo sheegaya laakiin dadka sheegay ayaa kala nooca raadkiisu kala nooc buu noqonayaa sababtu waa maxay bay leeyihin qofkan baan ahayn namuudajkii loo baahnaa qofkan qaa'idka ee wax hogaaminaya waxaan uu sheegayo hardware kar noqda waqtiga ilaaliya kan ilaaliya adna ba ilaalisid adoo marka yararkaagu xanuunsadaan ba jirtaa waxaanad rabtaa shaqaalu inaanu jarin ama uu soo noqdo ama ka noqdo suurtagal maaha waa inaad adigu namuudajkii noqotaa markaad adigu tusaale noqoto bay leeyihin ayay risaaladaadu gaadhayaan saa awgeed bay leeyihin qodobkani commitmentska iyagu sheegaan laba wax weeyaan bay yidhaahdeen waa maxay waa clarify values and set the example bay yidhahdaan qiyamka shaqo ama maamul ee la qabanaya waa inay qiyam cad oo dadkao dhan wada garanayay adiguna waa inaad tusaalihii noqotaa valueska waxa la rabo ee la qabanaya wax cad waa inuu yahay valuegu dadku la isku waafaqsanyay waa inuu ahaadaa secondna waa inaad adigu tusaalaha koowaad noqotaa markaasaad samaysay bay leeyihin kii koowaad ama shaygii koowaad nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam waxa uu tilmaamayaa inamaa bucistu liutamima makaarima values inaan dhammaystiraa baa lai soo diray buu leeyahy waxay dhahdaan caqaa'idda iyo cibaadaadka iyo waxaan oo dhami nolosha adduunka marka la eego values bay dhalaan valueskii dhaqankii uu dadku ku dhaqmayay ayaa ka dhasha cibaadaadkani dhaqankaasay xoojiyaan caqaa'iddatani dhaqankaasay xoojiyaan idan value baa ka yimaada qiyamkaas ayuu nebigu wuxuu leey waxaa la ii soo dirayba inaan qiyamka dhammaystiro waxaa kaloo lagu tilmaamaa nebigu inuu ahaa wax kasta uu dadka faray kii u horreeyey saxaabadu waxay dhahdeen wuxuu ahaa akharunaa shujaacatan wa akharunaa karaman wa akharunaa jawdan wa akharunaa wax kasta isagaa u horreeyey waxay dhahdeen qaa'idka dhabta ahi markaasuu noqonaya qof la rumaysto oo mistaaqiye leh oo dadku ay ilaahay baa qur-aankiisa wuxuu inoogu tilmaamaya مثلا ظلمك إلهي وحول ورنا ظلمك إسكا ممنوعي إني حرمت الظلم على نفسي إذن كنا محي فلا تظالموا باليدي هاي ظلمنينا إلهي وحول يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون وحين سمعين إنهم حاولوا واقع حاول سمعين استان إذا وحين لأني شيء كوات إنه بهنا وحويان هذا الربطه عدة كاد ضمبيسه ee aada maamulaysaa waxaad rabtay inay fuliyaan adigu marka hore tusaalihii waxaa fulin lahaa noqon qofkii loo arkaya inuu shaqada qabanayo nabi maxamed masaajidkiisii la dhisayay xataa iyadoo saxaabada wada xoog aan xooggiisa loo baahnayn ayuu muun fadhiisanay wuxuu tijaabiyey inuu isna jaajuurka iyo dhoobada wax ka guro oo heestay qaadayaan la qaado oo uu shaqada dhiiri geliyo idan waxay leeyihin qofku waa inuu model ahaadaa markaasuu qaa'id yahay hadduu aanu se model ahayn waxaana uu sheegaya aanay agtiisa ka jirin
إلهنا قرآن وحين لي مركي أنبياء الله ورمي فبهداه مقتدي شيء قال لبعض براكتس كوبا هم بيد هذا ووجهه إنه قف كليه مال والصعده ولي ببيد هذين وما شاء الله الصعدين يتين رؤية مشتركة رؤية مشتركة يعني براكتس كوان كور ربي دون هذه وقت وينوسينه لكن ميدوك سونون waxay dhahdaan qaa'idku tuuliska uu haysta saddex baa ugu xoog badan bay dhahdaan maamulba tuuliska uu haysta waa saddex shay un bay dhahdaan saddexdaas shay siduu u isticmaalo ayaa inta badan natiijadu ka dhalataa saddexda shay waa saddex shay oo nolosheena caadi ku ah laakiin u baahan inaynu saynu u qiimeynayno qiimeyn gaara siino شيء كواد واحد هذا أنا وهيستا والقناع إنه ضدك قنعين كرو وكلا الله بيده نقف هنا أمر سيسو ينا تقنعسو أنت بدن مالها فكرة دبل لقى أقبلين بقى أوامرتك الصعطة الثكنات العسكرية سكرت الله ما وقاليني فكرة ولا فكرة هاي أسكرجو عقلك واحد لا مالك سدردد ولا فكرة therefore waa awaamirun subaxii ninka meesha haysta markuu soo taago saaka shaqadu waa caynka ayaa caynka waa saaya sida saasa la qabanaya cid oo karto maxaynu waxa u qabanayna ma jirto ama waxa loo sameeynaa meesha waxay yiraahdaan toolka ugu wanaagsan ee uu maamul adeegsada ama leader u adeegsada waa iqnaac sadaradeed kuwan gaaladu waxay yiraahdaan ninka madaxda waxa fiican inuu karisme leeyahay inuu cod kar yahay inuu waxan maxaa lagu falayaa waxa lagu falaya inuu dadka qancin karo weedhiisu inay noqon karto weer dadka gasha tusaale kooban nabi maxamed sidoo waxa kan uu adeegsanaya alayhi salaatu wasalaam isagoo masaajidka fadhiya oo majlis fadhiya masaajida oo saxaaba la fadhido ayaa nin yar oo dhalinyaro u soo galay dabeetana wuxuu codsi buu keensaday codsi masaajidka iyo nabiga iyo saxaabada agtooda qariib ku ah codsi buu keensaday waa maxay waxaan rabaa inuu nin dhalinyaro baan in zinada la fasaxo buu yiri aniga suuq galka la ogolaado codsi abu wata waa la soo bareeray oo meesha nabigu fadhiyay saxaabada jooga ay codsiga keen dabeetana waa lagu qeyliyay warkaadii ibn nabiga warkaale soo dhawow buu ku yiri soo dhaweey dabeetana xiwaar buu nabigu la galay wiilkan wuxuu yiri waxaan ku weydiiyay hooyada ma la jeceshay waxaad rabto waxuu yiri maya ilaahay rasuulkiisa hooyada cid ka sinaysato may ma rabo markaas wuxuu weydiiyay walaasha ma la jeceshay may dumarkii hareerihiisa ninkan ku xeeray caarka waxay Soomaalidu taqaanaa ayuu weydiiyay eeda habar yar walaal inta hadashay inta midna inay xumaato meedashay markaas uu yiri may suu yiri hadaba dumarka kalena ragum bay hooyadood iyo eedadood iyo habar yartood iyo kan yihiin markuu wiilkii la hadlay ee uu qanciyay ayuu nabigu u duceeyay hadana laabta intuu aad ka saaro wuxuu yiri ilaahay uu dambigiisa dhaafay waa u duceeyay wiilkii dhalinyarada wuu ku qancay waxay yiraahdaan gabadh dambe isagoo eegaya lama arag uma jeedno ducada iyo warkan dambe uu nabigu u sheego waxaan uga dan leenahay wuxuu ninkani sheegay wax sharciga oo dhaga soo horjeeda wax ila aqbali karta ma aha aayadka zinada ka waramaya waxay soo dageen Maka intii la joogay xuduudda تعزيرك الله مرينا يا عقابة الله مرينا مو حصاب مركي دم بسودقي لكن آيات كنهينا يا في سورة الإسراء ولا تقربوا الزنا هي آيات كور رمى يا وحي سودقي محي مكة زنا دوا ممنوع شريعة الإسلام قوا وحلا ودقرنا هدنا لما أوراني وريا زنا دوا ممنوع وحل تشابين محي لقد عنكره وحنا أسلوبك وقفي عنه وقنعين مثلا وحيد هذان الدولة ده أمام مضحضه ama shirkadka ragga haysta marka ay rabaan inay qanciyaan ama dadkoodii hantiilayaasha shareholderski waxa kan ama dawladda nimanka madaxda ah marka ay rabaan inay qanciyaan bulsho weynta mucaarad baa jiro dadka wax ku afuufay dib kala jirto la yiraahdo atumuux albashari hanka binaadamka lama buuxin karo wax kasta hadaad qabato dadku wuxuu buu dareemayaa oo inta dhiman buu arkaa muslina koobka inta dhiman baa xoog u muuqata
waxaad wanaajiso oo dhan inta badan dadku ma arkaane waxay arkaan maxay waxyaabahaad qaladay waxay idhahdaan qofka maamulka ahi ama madaxda ahi ama wasiirkii ama madaxweynihii difaaca ugu fiicana uu sameeyaa waa maxay bay dhahay dowladi bay dhahaan waxa ugu fiicana isku difaacdaa waa laba shay labadaas shay hadday sax yihiin bay dhahaan way isdifaaci kartaa haddii kalena waa adagta inay isdifaacdo waayo marnaba bini aadamka dumuuxiisa ma buuxin kartid waxa ugu weyn ee la isku difaacaa bay dhahdaan waa asharciya iyo walixsaa'iyaat bay dhahdaan waa qofku inuu meesha tan aanu boobina inuu xaq u lahayo sharci ku yimi yani booska madaxweynenimo ama booska wasaare inuu sifo sharciya u soo maray ee dee meel uu dadka ka boobay ama ka xoogay inaan ahayn ka labaadna bay yidhaahdaan waa ixsaa'iyaat waxqabadkiisoo tira kooban inuu saaba haday dowladda ka waranto sanadkan 2,000 kilomitir oo wadda baanu dhisnay 100,000 oo iskuul baanu hagaajinay intaasaanu hagaajinay waxqabadkii baa muuqanaya adduunka shirkadda haystaa tilmaamo inta branch cusub la furay inta waxa soo kordhay inta lacag soo kordhay koolsku siday u tiro bateen waxana say u tiro bateen percent ku marayo ixsaa'iyaadka markuu soo bandhigo waxa muuqanaya qofkan waxqabadkiisii waxa la mid ah qof kasta oo shaqo haya ninka idinku hooseeya linemanka ama meesha jooga hadduu tilmaamo sanadka kan 2,000 oo line oo go'ay waan xidhay 3,000 oo line oo cusub waan geliyey 4,000 oo line oo cilad lahaa waan ka saaray intaasoo waxaad oranaysaa qofkani waxbuu qabtay yani madaxaaga wuxuu keenayaa wixii uu qabto laakiin hadduu subax walba sii kaloo soo kaloono aanu waxba kuu sheegin oo soo qabto hadhow departmentkaasi wuxuu madaxda ka sarreeya ama cid ka sarreeya uu ku qanciyaa ma jiro marka waxay yidhaahdaan iqnaac haddaad rabto dowladeed shirkadeed waxa kan waxa ugu weyni waa qofku sifo sharciya inuu waxaan u qabtay oo booskan si sharciya u joogay iyo tirakoob bay yidhaahdaan waxa lagu sameeyo idan madaxii waxay adeegsato oo ay dadku qancisa bay yidhaahdaan ama ay hoggaanku wuxuu wax ku maamulo saddexda shay ugu qiimaha badani bay yidhaahdaan waa qancin abaalmarin iyo ciqaab innaga dhaqanka Soomaaliga ka u dambeeya u horeeya qof kasta oo qalad jabiyay waa in la ciqaabaa wax kasta oo qof galo marka innaga xeerka ciqaabta madaxeena uu ku weyn dhaqan ahaan ilaa iyo malcaamadda ka soo bilow markaad ka soo bilowdo yararkaasi quraanka waxay u nacayeen shil la dhacay inaga xeerka ciqaabta maxay waxa koowaad la sameeyo laakiin waxay yidhaahdaan maamulaha rasmiga ahi saddexdan shayba ah bay yidhaahdaan waa tuuliska ugu weyne qofka maamul haya u adeegsada bay yidhaahdaan waxaa ugu qurux badan bay yidhaahdaan inuu qofku dadka qancin karo waad wadan kartaa bay leeyihin qofka haddaad qanciso waxaa ku xiga bay yidhaahdaan qofku inaad maxay abaal marin karto abaalmarku hanti maaha inagu inta badan abaalmarka waxaynu u naqaanaa hanti abaalmarka waxaa ka mid ah qofka inaad ku ixtiraamto shaqada waxaa ka mid ah inaad dhiirigeliso dhiirigelintu waa weer fiican oo qura inaad ku tidhaahdo qofkan inuu wixiisii qabtay inaad u mahadnaqdo markuu shaqada soo qabto thank you inaad ku tidhaahdo yani waa tashjiic waa abaalmarin ilmahaaga yari inagu waxaynu u naqaanaa maxay dhahaan laa shukra cala alwaajib waa qaldantahay waajibkunbaabaa laga shukri dhaqaa haddaad tidhahda laa shukra cala alwaajib qofka maad dhiirigelin ma qofkii maad wixii uu qabtay waa waajibkiisii uu ka soo baxay laakiin adigana wuxuu kaa sugayay inaad recognition la timaado inaad qirto haddaba waxay yidhaahdaan qofku waa inuu inspiration leeyahy waa inuu ilhaamin karaa dadka waa inuu riyo tusi karaa ay ku socdaan iyo meel ay u jeedaan waxay inspirationkaasi wuxuu ku yimaadaa bay dhahaan laba shayo waa envisioning the future bay yidhaahdaan meesha loo socdiyo muuqaalka inuu qofka tusi karo iyo bay dhahaan enlisting others markaynu soo koobno waa masaladii aan idin lahaa uun enlisting the others waxa weeyaan qofkii naabiqada waxaynu meel fog buu arkayaa dee dadkana inaad soo kaxayn karto oo meesha ay kula arki karaan ama tusi kartid ee keliga aanad ordin ka saddexaad waxay ku tilmaamaan in looga baahayay shaqada inuu qabtaa waa challenge the process bay yidhahdaan shaqada processka ay marayso inaad challenge garayso oo waa maxay najaax iyo guushu bay yidhaahdaan guul waa laba shay oo la isku daray bay yidhahdaan baa guul sameeya labada shay oo la isku daraa waa maxay waa alfursa waljaahiziya bay yidhahdaan
inaad fursa jirto haddaan meelaan opportunity ka jirin dee guul ka gaadhi maysid ka labaadna waa inaad adigu marka fursaddu timaado qof u diyaara inaad ahayd haddaad markay fursaddu timaado kabash laysoo tidhaahdo waxaasaynu u baahanayna guulaysan maysid therefore waxay idhaahdaan haddii aad rabto broseska shaqadaadu siday u socotaa inay qumanaato waa inaad noqotaa qof arki kara furaska yaalla مثلا telecommunication baad ka shaqaynaysaa waa inaad arki kartaa furaska waddanka yaalla maxay yihiin kuwa muuqan karaan kow ka labaadna waa inaad diyaar u tahay oo fursaddaas aad uga faa'iidaysan lahayd inaad diyaar u tahay markaasaad gaadhi kartaa bay idhaahdaan guusha la sheego marka broseska waa inaad challenge garaysaa bay idhahdaan tusaalaha waxay ku bixiyaan nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu tijaabiyey cid qaadata inuu helo tolkii way diideen ciidanna ma haysto dowladna ma leh dhaqaalana ma haysto wuxuu tijaabiyey cid uu magangelye ka heli karo oo xorriyaddaas siin karta inuu diinta dadka gaadhsiiyo inuu helo dabeetana qabaa'ilkii carbeed ayuu xajka u tagaa kuwan u sheeg kuwan u sheeg kuwan u sheeg kuwan waa la soo diidaa waayo dee mararka qaarkood challengesku siday ugu adkaayeen dee adeerkii ruma baa daba socday ka warran haddii adeerkaa lagu daba dhigo adeerkaayo aabbaha la dhasho meesha istaagta bay idhaa ka yaranaa waa adeere waa been wuxuu sheegayaaye waxba kama jiraan dadka intaad u malaynaysa abaha wax kaa dhegaysan lahayd yani adeerkii abiilaha baa daba taagan oo le yarkan waa saabi diintu ka baxaye waxbaa ka dhegaysanina qabaa'ilkii markaa qabiilkan u tag waa rafdiyaan kan kale u tag waa soo diidaan kan kale u tag waa soo diidaan ma yidhi war nagadaa meesha tan waxba la qaban kari maayo maya he challenged the process isku day inuu processka challenge gareeyo culamada taariikh qaar ka mid ah waxay sheegaan 15 reer baa diiday bay yidhaahdaan laakiin at last muxuu helay qola aqbashay ugu dambeyntii ansaar baa aqbashay dabeetana waxaa suurto gashay inuu ballan la galo ay ballanka oofiyaan oo dabeetana 2 goor ay u yimaadaan oo 2 goorba ballama uu la galo oo la aqbalo oo cid u diro oo meesha la sii hagaajiyo oo dacwo laga sii sameeyo kadibna uu hijroodo kadibna naf iyo nafiisba idan processka wuu challenge gareeyay processku markuu bilaabayba najaax ma gaadhin guushu markiiba instantaneous ma ahayn laakiin markay 15 qabiil diiday ayuu noqday kii 16aad inuu maxay suurto gasho inuu gaadhi karo idan waxay yidhaahdaan masaladan ay sheegayaan waxay iyagu yidhaahdaan experiment and take the risk bay yidhaahdaan waxaa experiment gare riskigana aqbal maalin walba lama guulaysto fashalkaagu waxaad wax ka barata ha noqdo yani fashalku bay yidhahdaan inaad wax ku fashashaa qofna wuxuu u arkaa inuu khasaaray qofna wuxuu u arkaa bay yidhaahdaan inuu maxay aqoon kororsaday waxay yidhahdaan markaad fashisho macnaheedu waxa weeyaan waxaad soo ogaatay waddo aan waddadii guusha ahayn dan waad cilmaad heshay waddada haddii la maro really waxaad soo xaqiijisay inaan ahayn waddadii guusha mar dambaanad maraynin waxaad tijaabinaysaa markaa mid kale inaad marto qodobkooda afraad waxay ku tilmaamaan enable others to act madaxda barh baa jecel inuu magaca isagu qaato wax walbana in isaga loo nisbeeyo inta badan waa dictatorship isku say yeelaan wasiirku markuu khudbadaynaya wuxuu odhanayaa madaxweynihii baa salaanta noo soo faray madaxweynaha anagoo ka tarjumayna waxaanu idhi aragtidii madaxweyne hadda waxba uga soo sheegin waayo ninkan bay ogyihiin inaanu wax kala aqbalaynin in isaga la sheega mooyaane waxay dhahdaan leadershipka dhabka ahi kaamaha bay dhahay leadershipka dhabta ahi waxay dhahdaan waa qofka dadka traingareeya ee aqbala inay soo baxaan makin ilaakhiriin bay dhahaan wafsax lahum almajaal dadka tababar oo ugu talagal waa mas'alo bay yidhahdaan ciddaan liidarka ahayn ku adag dadka badh waxay ka fekeraan waaran mushaqadaada kaa qaada haddaad soo kor soo qaado iska celi dee maamule intuu maamulayay la loolamaya haddaad intii adiga lagu yidhi tababaroo hore wadaad la loolanto dee waxba socon maayaan laakiin haddii aad iyaga soo tababarto soo adiga shaqadu kaa fududaanaysa horead guul u gaadhaysaan waxay dhahaan liidarka dhabta waxaa lagu yaqaanaa bay dhaheen markuu meesha ka tago wuxuu kaga tagaa bay leeyihin dad liidari soo wadi kara ninkaan liidarka ahayna waxaa lagu gartaa bay dhaheen markuu meesha ka tago arday isku wareegtuunbuu ka tagaa cidaan garanaynin meel loo socdo مثلا waxay dhahaan nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam
waxyaabaha liidarnimadiisa dunidu ay maanta u ictiraafsantay waxaa ka mida bay yidhaahdeen dad aan aqoon lahayn meelaan philosophy oolin dhaqan oolin luqa oolin yacni wax la bartay jirin dad reer miyi rasmiya ah ama shubhu reer miyiya ku dhadhow aqoon halkaa ka jooga ayuu train gareeyey bay yidhaahdaan maalintuu ka baxay isagu iyo dhintay calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka tegay bay yidhaahdeen isagoo qaada reer miyiga ay qaadayiin dabeetana dunida kuwuu ka tegaa dawkhiyey iyaga qaada ahaa hadduu ka tegi lahaa bay leeyihiin nooc ah tabac muriidiin hadduu ka tegi lahaa isna uu sheekhu meesha ka ahaan lahaa oo uun isaga wuxuu sameeye eegi lahaa maalintuu ka baxo dariiqadu waa baabi'i lahayd waayo awal bay muriidiin ahaayeen awal baanay ahayn idan qaa'idka rasmigii bay yidhaahdaan waa qof dadkan uu wade uu hogaaminayo u traingareeya inay noqon karaan qaadatul berrito dadkii qaadada noqon lahaa marka waxay yidhahdaan dadka barh baan jeclayn munaafasada ama aan jecel inuu isagu ahaado almathal alwaxiid waa dhib bay yidhahdaan saa daraaddeed iyaga waxay yidhahdaan foster collaboration and strength others yani nami tacaawin wax wada qabadka xooji dadka kalena xoojiyo u bannee inay shaqada qaban karaan waxay ugu dambaysiyaan iyagu ay yidhaahdaan markaa qadiyatu tashjiic oo encourage the heart oo ay ku soo koobaan dadku waxay qabtaan marka hore ictiraaf oo celebration u sameeyo faafi oo valueska iyo victorieska ay keeneen qir qofku markaa wuu sii wadayaa shaqada dee qofku markuu soo shaqeeyaa tidhaahda waajibkaagii umaad gudatay ama wixii lagaa filayay baad qabatay that's not enough waad niyad jebisay bini aadamka waxay idhaahdaan eraygu meel fiican buu kaga dhacaa marar badan baan maadadu gaadhin bay idhaahdaan meeshuu eraygu gaadho qofka ixtiraam iyo qadarin kuu muujiya uu kaala qiimo badanya qof wax ku siiyey hantidu wax weyn maaha qofka identitygiisa iyo bini aadamnimadiisa ka mudan dhaqaalihiisa iyo hantidiisa yes dhaqaalu waa ku jiraa waxsiintu oo ilaa xad uu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam wax isu hadiyaya waa isjeclaanaysaane jacayl iyo maadaa laisku xidhay yani waa basharka waa ku abuurantay dee qur-aankaba haddaad akhrido xoolaha iyo jacaylkoodu waa isku naban yihin bini aadamka wainahu lixubu lkhayri lashadiid watuxibuuna almaala xuban jama xataa kuwa bixinayay maxaa lagu yidhi qur-aanka waxay bixinayaan baa la yidhi maxay calaa xubihi iyagoo jecel bay siinayaan miskiina wayatiimo ay siinayaan marka ka bixiyeyna isagoo jecel buu bixinayaa ka kalena isagoo jecel buu guranayaa weeyaan idan waa ka mid laakiin waxaynu leenahay iyadoo qura maahe qofka in la ixtiraamo oo waxqabadkiisa la faafiyo oo la abaal mariyo oo la tashjiiciyo ayaa ah bay leeyihiin wax weyn ah saa daraaddeed liidarku baynu leenahay markaynu warka soo koobno waa inuu noqdaa qof dadku wada jecel yihin nabiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay war xulkiina ama mudankiina ma idiin sheegaa buu nabigu yidhi alaa ukhbirukum bikhiyaari amwaraa'ikum wa shiraarihim madaxdiina iyo maamulkiina kuwa ugu fiican ee xulka ah iyo kuwa ugu sharka badan lama idiin sheegaa buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam haa baa la yidhi wuxuu yihi kuwa ugu fiicani waa kuwa idinkuna jeceshiin iyaguna idin jecel kuwa ugu sharka badan buu nebigu yidhi waa kuwa iyaguna idin neceb idina aad soo habaartaan ay necebtiin hadduu ninka madaxdii noqdo nin markuu maqan yahay laxanto oo meesha oo dham ay ku faraxda maqnaanshihiisa kolley habaar buu ahaye haynaga maqnaado hadduu noqdo waa dhib cagsiga hadduu ninka madaxda ahay markuu maqan yahay ama nin qof la tabo uu noqdo oo la idhaha wallaahi waa ninkii way naga maqanyaan shaqada maanta iska gejino oo loo arkayo qof ay ixtiraam u hayeen qof aanay ceeb la rabin maqnaanshiyihiisa ay u arkayaan inay iyagu buuxin karayaanna waa liidarkii loo baahnaa idan waxyaabaha aan sheegnay labadaa nin wixii ay sheegeen aan ka soo koobnay ama ha noqoto traitiska oo simaadka qofka laga raba ah ama ha noqoto akhlaaqiyaadka ama dhaqamada ama practiceska ama afcaasha la rabo
inuu qofka liidarkii qabto ha noqotee wuxuuba waa intii ilaahay kitaabkiisa ku sheegay ama sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam ku sheegay waayo waxay dhahdaan qaa'idka dunida ugu xoog badan ee soo maray xataa gaal waxay leeyihin waa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ma nebinimada ay qiimeynayaan maya iyagu waxay qiimeynayaan outcome-ka waxay leeyihiin wuxuu haystay wixii ugu yaraa resourcekii ugu yaraa buu haystay bay leeyihin waxaanu dhaliyey bay leeyihin wixii ugu weynaaye bini aadam uu dhalin karo qofku haddii de inaga project balaan markaad lagu idhaahdo waxaa soo qabo project balaan baad samaysataa aad ka waranto kow resourceskaad u baahantay waxaasaan u baahno kaasaan u baahno waqti intaa lago dad intaa lago shaqo intaa lago xoog intaa lago intaa marka lagu siiyo ayaa haddana wagash tahay talo muu fuli doonaa projectkii mise ma fuli doono ma sax noqon doona mala nebi maxamed intaa midna ma haysan meel cidla ah oo quraysh joogto oo diinlaawayaal joogaan oo mabda aanay rumaysnayn la rabo inuu ka dhaadhiciyo ku hogaamiyo waanu dhaqaalo haysano ciidan u haysan buu ayuu ka bilaabay idan waxay yidhaahdaan resource gacantiisa kuma jiraan waxyigaas iyo tusaalaha alla ahayn iyo alle subxaana watacaala gargaarkiisa waxaanu dhaliyey bay yidhaahdaan isbedelada dunida ka dhacay isbedeladii ugu weynaa marka iyagu gaaladu waxay qiimeynayeen qofkani wixii uu haystay practicalka iyagu ay arkayeen iyo natiijadii ka dhalatay markay isu qiimeeyeen waxay tilmaamayeen inuu yahay good leader haddaba liidernimada oo dhamme markaan soo koobno waa inuu qofku noqdo asaadiq alamiin taas buu ku helayaa kalsoonida dadkiisa ama credibility-ga uu ku helaya practice-kan ay sheegayaan haddii uu sameeyana wuxuu noqonayaa inay bulshadu hore u socoto laakiin waxaan akhriyay waa theory waa nadariyaadkii waxaa ka quman in tadriib lagu helo kuwaasi waxaynu sheegnay system loo tababaro basharku buu leeyahay oo loo gaadhsiin karo qaabkaasi in la helo iyadoo tababara ayaa waxay ka muhiimsantahay in la helo iyadoo lecture hadda waxa aynu dhignay wuxuu la mid noqonayaa theory-gii darawalnimada marka la dhigayo la sharxi jiray waa laga yaabaa haddii la idin imtixaamo inaa intii qorqortaan oo guulaysataan laakiin practically ma fulin doontaan waxay u baahan tahay in gaadhiga la idin baray sida loo wado iyo inaan la idin barin wasala allahu calaa maxamedin wacala alihi wasaxbi wasalam walxamdu lilahi rabbi alcaalamiin